بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ugu horeyn ilaahay baa mahadle. marka labaad waxaan mahadnaqayaa madasha baraarug iyo Cabdillaahi oo hawshan soo qaban qaabiyay. waxaan kaloo aad u mahadnaqayaa teamka xaggan fadhiya Higma Foundation, Dr. Idris iyo Muuse oo ka socda iyaguna Higma Foundation iyo dhammaan martida kale ka soo qayb gashay ee waqtigooda anaga ku soo qaadatay in xagga yimaadaan aad baan ugu mahadnaqayaa. kulli waqtigu waa kooban yahay, farxad weyn bay tahay madal aqooneed oo makaraysa caynkan oo kale oo ku saabsan waxa la yiraahdo knowledge production-ka ama doorka ay ku leedahay tacliinta salaama jaamacaduhu. knowledge production-ka inaan ka hadalno waa mowduuc aad iyo aad u qiimo badan oo marka la eego madasha roolkeeda iyo shaqadeedu waxay ku tacalluqdaa qayb ka mid ah knowledge dissemination-ka waxa la yiraahdo ama in la baahiyo aqoonta oo buugtan maanta halkan lagu qaybinayo waxa weeyaan waa nooc ka mid ah knowledge mechanisms-ka ama knowledge management mechanisms ama knowledge sharing mechanisms ay ka mid in buug la soo bandhigo oo ay dadku iibsadaan is one of the mechanisms of knowledge management. haddaba mowduuceenan maanta lagu yiri ka hadal wuxuu khuseeyaa higher education oo ah tacliintii sare iyo knowledge production. sidee bay isku xidhan yihiin, sidee buu higher education u contribute garaya knowledge production-ka ama in la soo saaro aqoon waxa la yiraahdo knowledge discovery baa la yiraahdaa. okay, higher education-ku bahalta macnaheedu wuxuu yahay marka ugu horeysa in the first place iyo marxaladaha uu soo maro iyo qaabka uu contribute garayo ama uu sameeyo waxaan ka hadlaynaa knowledge production. okay, higher education-ku sida caadiga ah waa post secondary education soo ma oo wixii ka dambeeyay maxay secondary education-ka ayaa la yiraahdaa maxay higher education. dabcan markaynu ka hadlayno waynu ka hadalnaa markaynu intaynu ka hadalno knowledge-ka production-ka intaynu ka hadalno waynu ka hadalnaa horta tacliinta sare maxay u kala baxdaa marxaladaha soo martay. okay, marka sida caadiga ah marka technology-ga laga hadlayo wax kasta marxaladuu soo mara soo ma bini'aadamku soo mara marxalado dawan ma waynu aragnay technology-ga 3G 4G 5G soo ma jiraan. tacliintuna sidaas oo kale marka laga hadlayo higher education ka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo generations, university generations yaa jira. okay, marka first generation universities waa jaamacadihii bilaabmay 1900 first generation universities macnaheedu si formal loo aasaasay waqtigaas waxaa la oranayay waa first generation universities oo waxay focus gareynayeen oo kaliya waxbarashada education. okay, marka waxbarashadu waa maxay? waa teaching and learning kaliya. marka dadka wax bay barayeen teaching and learning. marka goolka marka jaamacadaha marka loo aasaasay waxa ayeen to teach soo ma in waxbarashada in dadka wax la baro. roolkoodu wuxuu ahaa markaa rool bay lahaayeen marka ujeedadii iyo roolku way kala duwan yihiin. ujeedadii jaamacadaha loo aasaasayay in tacliinta la baro dadka bay ahayd. okay, ujeedo kale ayaa jirta oo la oranayo waa roolkii waxbarashada ama higher education muxuu noqonayaa marka inuu waxaan ka hadlaynaa mawduucina xagga dambe roolka ay ku leeyihiin jaamacaduhu knowledge production-ka. laakiin se waqtiga waxaa lagu dadaali jiray in dadka wax la baro education teaching and learning. roolkuna wuxuu ahaa waxa la yiraahdo knowledge protection and protection of the truth. in la ilaaliyo cilmiga oo laga ilaaliyo maxaa hadanay food mina wixii aan been wixii cilmigii beenta ah inta la baaro la yiraahdo waxaan waa been oo ma sugna oo scientific maaha laakiin se kana sax oo jira mina protection of the truth. knowledge markaynu qeexayno cilmi marka la qeexayo knowledge way soo ma. okay, marka la qeexayo cilmiga waxa lagu tilmaamaa set of true beliefs that you believe it to be true. waa set of true beliefs that you believe it to be true. tusaale ahaan inagu waxaan garanaynaa oo cilmi inoo ah inay jirto maalin ay adduunyadu dhammaanayso soo ma. waxaa ka mid ah wax kasta oo runa sida all the human being are mortal soo ma. bini'aadamka oo dhan uu dhimanayo is a knowledge is a truth soo ma oo wax aan isbedelin bay soo ma ya bini'aadamku uu dhimanayo is a knowledge. okay, marka knowledge wuxuu leeyahay hierarchies oo macnaha wuxuu kasoo bilaabmaa macnaha information hierarchies marka laga sheekeynayo wuxuu kasoo bilaabmaa data oo macnaha empirical data ama in la ururiyo
maxaa information xogtaa laga soo saaro markaa aqoon. Okay, marka data, information, and then we have the knowledge, and then the highest level of knowledge is the wisdom. Wisdom huwa xagga ugu sarreeya cilmiga. Tusaale ahaan haddaynu soo qaadano qur-aankeena iyo axaadiista waxay noqonayaan wisdom waa the highest level of knowledge. Wadana aqoon ka sarreysa jirta ma jirto soo ma. Okay, marka aqoontu ama knowledge markuu gaaro xagga ugu sarreeya waa la xigtaa. xigashadu waa maxay? sidii loo yiri kama bedeli kartid sidii quraanka ma bedeli kartaa. You can't, isn't it right? So xadiis ma bedeli karnaa laakiin sidii loo yiri baa loo oranaya soo ma. quraanku sidii uu soo degay ayaa loo oranaya. Okay, marka markuu cilmigu gaaro wisdomka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo verbatim, macnaha waa la xigtaa oo wuxuu yaalaa qaabkii suugaan oo kale. marka taan macnaheedu waa maxay? waxa loogu talagalay dadku intay xafidaan inay sideeda u yiraahdaan. Okay, waxa kamid ah xigmadahan caadiga ah ee Soomaalidu ay isticmaasho ninta qaada ximbo iskay Soma. Yeah, all these, Somali proverbs in the literature are also wisdom, one of the knowledge we have. Then we look at marxaladaas oo Soomaaliya jaamacaduna waxay soo marayaan maxay iyaguna marxalado. Okay, markay jaamacaduhu marxaladaha gaaraan gaar ahaan kuwan ka hadli doono stage by stage kale ayuu u sii gudbiyaa inay jaamacadaha capacity-gooda iyo role-kooda u kordho. Marka first generation universities waxay ku koobnayd knowledge transmission ama in dadka wax la baro, teaching and learning, nothing else. Okay, haddaba output-ka jaamacadaas muxuu noqonayaa professionalism. muxuu noqonayaa profession ina soo saaro dad wax garanaya. Okay, dad engineer of electrical garanaya. That was the role of first generation universities in 1900. haddaba luqadaha marka jaamacadaha lagu dhigayay waxa ay Latin yahay. Ancient time, medium of instruction as universities waxa hayeen Latin. Okay, management structure koodu waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa qofka ugu sarreeya loo oranayay marka chancellor. And when you see in our context and also the African countries, sometimes waxa maqalnaa jaamacadaha chancellor and then we see how far we are behind. Management-iga beriga 1900 ama 1900 ayaa waxa la oran jiray chancellor qofka jaamacadda maamula. Chancellor kii. Okay, marka aad u fiirsato jaamacadaheena iyo contextkeena waxa la oranayaa chancellor. marka waxaad garanaysaa generation-ka jaamacadaheena ay yihiin in first generation-kii aynu soo gaarin qaarkoodna wadamadan garanaysaa la ixtiraafsan yahay ee ku yaala third world countries-ka waxa laga yaabaa in jaamacadooda hadaad baadho chancellor keliya ugu qoran yahay management team-ka, and then that is an indication how far developed countries universities-kooda ay behind yihiin ayna contribution badan ku sameynayaan knowledge production. And second generation universities waxay bilaabeen marka 1930 to 1950 education and research. waxay la soo ergaleen madaxa in la sameeyo research, and that was basically an academic or basic research oo ardayda loo diro la supervise gareeyo. You see that the roles of universities are changing as we move forward. And marka role-koodu muxuu ahaa cognition in nature, cognitive development, in qofka garaadkiisa iyo capacity-giisa ayaa ahayd la kordhiyay marka qofku noqdo qof wax soo saaray. Cognition, cognitive, mental ability, critical thinking. So markaad barbar dhigto jaamacadaheennana role-ka jaamacaduhu ay ciyaarayaan and the critical thinking iyo makaranaysa in qofka competency la yimaado, I think that element is not there. Okay, waxay soo saaraan output-kay soo saarayeen marka wuxuu ahaa professionals iyo theory professionals oo kaliya sameeyay. Kan wuxuu soo saaraya professionals iyo scientists. Waayo research markaan maqalto oo research maqasho maxaa ku soo dhacaya? Science. Research is a science. Yeah, marka second generation universities education iyo maxaa la isku daray marka iyo research deetana output-ku wuxuu noqonayaa researchers iyo professionals. halan ka hadlayna marka first generation universities professionals ma soo saariyay scientists meesha ku jira. marka dadka scientists they are the researchers. Yeah, marka science halkaas ka imanaya cilmiga dhabtiina waa science. Yeah, it's a science.
Okay, language national من native language اللي بقول لك for example now if you go to Turkey جامعة ده واحد اللي بقول لك سوما أفترك سوما مو سأسف عنه كده أفترك بقى بقول لك أنت بدل جامعة سوما قادر إنه يعني مرة واحد قال مثلا جامعة عين كاسة if you go to some universities in Malaysia the medium of instruction or the language of instruction is the national language their native language ويا مرة تعرف كده the generation كأي كل شيء whether they're the first generation universities or whether they are the fourth or fifth generation universities. Marka ana is another indication. And dadka maamula nuucayhi marka jaamacada second generation ka marka muqaadan dadka maamula waxa weeyaan part-time scientist. Yeah? Part-time scientist. What the chancellor kuma koobnimo the management is also isbedelaya si loo maamulo jaamacada. Okay, third generation university waxay focus galayaan waa intii hore oo lagu daray in kale tii hore maxay education iyo science soma. Okay, marka waxa soo gelaya utilization of the knowledge. So when you go for research you produce a knowledge, isn't it? And then that knowledge you make use of it. Marka second generation lagu jiro jaamacada ardayda loo diraa research dissertation whatever it is and that is being kept in the library or something, just a document on the shelf. That knowledge has not been utilized. Well, أقول اليوم ما نسكت بيجي نقول ساسونا. Okay, third generation universities. واحد سوى درنا okay, we produce this kind of basic knowledge, then we need to utilize it at the maximum. إن الاستعمال utilization يلا بس درنا. Okay, and role كوم محوية مركا creation of added value added creation in accounting. iyo research iyo knowledge ka waxa la yiraahdo value addition value addition inuu sameeyo marka. Okay, akhadbadku muxuu noqonayaa professionals scientists iyo entrepreneurs maraaxadii hore waxa soo saarayay inay educate professional scientists second generation waxa ku soo beeray entrepreneurship ومعنى research waa in la isticmaalo laga dhigo something that can be sold wax la iibin karo oo product soma ama service. Marka research waxa abuuraya marka ama knowledge marka utilization kiisa laga hadlayo something useful waxa innovation ku qiimeynaya marka wuxuu soo saaray marka product waxa laga yaabaa jaamacadda soo saarto product soma ay iibiso maxayna shirkad weyn a big enterprise or corporate ay ka iibiso dadana wixii soo saaray marka lacag badan iyo dakhli badan. That's why sometimes we see knowledge based economy oo dhaqaale lagu sameeyo maxay cilmi oo jaamacaduhu lead garayaan economy. Okay, third generation university luqad way isbedeshayo ilaan cilmigii isna segment isna hadii laga qoro cilmigii luqadda Soomaaliga oo kaliya waxa laga yaabaa isticmaalidiisa baa tahay so we need to translate that Somali language into a universal language dadku wada akhri karaan baran karaan and English soma. waqtigii hore dad age-ka Arabiga buu haasana qof wadon Arabi garanay waxa uu baranayn soma. Imika is the vice versa and when you see if you English hadana si fiican u garanay waxaas buu ku qorano dhan intooda badan ee jaamacadaha xuseeyo English buu qoray soma, whether it is accounting or science or medicine English buu qoray. Marka hadana luqadii caalamiga aqoonta lagu abuuriyay lagu baahin hadana garanay maxaanay isticmaal karimay sidoo ka faa'iideysan karimay sidoo taala soma maxaanay cilmiga. Okay, and management teamku waxa weeyaan professionals iyo management dad management ka loo tababar ayaa markaa ka shaqeynaya. CEOs loo tababar inay noqdaan strategies ayaa ka shaqeynaya markaa jaamacadaha jaamacadu they are shifting. Okay, and fourth generation universities markaad aragto iyaga goolkooda waa maxay waa education research knowledge and utilization of knowledge and proactive of economic development. inay noqdaan jaamacadu proactive economic development iyagu dhaqaalihi iyo economic leading because they produce that knowledge and when you use that knowledge at the maximum wuxuu saameyn ku leeyahay maxay dhaqaalihi iyo development ku saameyn ku leeyahay. Marka economic growth and economic development is different. Waa dad dhaqaalaha garan dhigtay ama social service activity fahmayso economic growth lama hadlayo haddii jaamacad iyo waxbarasho laga hadlayo development marka economic development
that is developing human capacity, intellectual capital ayaa la dhisaya marka that is the development oo qofkana soo saaray marka maxay cilmi iyo aqoon la iibgeeyo oo abuurta maxay the horumarka keenta marka so that goes to human development index or human innovation index. It is all about the knowledge, scientific knowledge. Output muxuu noqonayaa kuwa marka professionalism, scientists and entrepreneurs, competitive local economy. Marka wadankan dhaqaalihiisu wuxuu noqonayaa very competitive sababtoo ah cilmiga ayaa sameeyay wax la yiraahdo value creation. Haddaan soo qaadano wadankeena oo kale xoolaha markaynu ka hadlayno so wax dhaqaale ku xidhan yahay soo okay laakiin se value additional neefbiyanol baa dadka laga dhoofiyo soo laakiin se haddii value addition capacity-ga waddanku leeyahay jaamacadu leeyihiin inta value addition la sameeyo oo process la geliyo ayuu neefkii la siinayay $7 marka $7 noqonaya wuxuu noqonayaa wax ku dhow $10 soo and that is what development-kii marka haddaba jaamacadahaasi 4th generation universities multilingual ayay ku hadlaan luqado badan ayaa laga isticmaalaa wax laga isticmaalaa sababtoo ah markaan ka hadlayno development-kii masnad waa inayna compromise gareyn local context-ka as well listen okay marka jaamacadu markay halkaa gaadhaan waxay isticmaalaan luqadoodii oo maxaa hadalnay qiimo leh iminka turkiga oo kale dee adduunyada wuxuu ka taagan yahay marka laga hadlayo horumarka meel sare soo maaha okay marka capacity wuxuu leeyahay luqadiisii dadka ku gaarsiiyo una ku ilaashado dee soo maaha waxaa laga yaabaa luqadiisa inta ku hadasha kuma inay aad u fara badan tahay soo maaha ay ka badan tahay wadamada carabta oo la isku daray qaarka yaa suuragal markaad aragto Eastern Europe Turkey is dominating because of the language deetana sababtaasuu imiga luqadoodina waxbaa lagu baraa dadka sababtaa uma baahna dee luqada ajnabiga they already created their own knowledge isn't it cilmigoogii bay abuurteen marka kuma tiirsana in badan maxaa nay outsourcing in badan ma sameeyaan they develop their own knowledge deetana luqadoodii qiimay leedahay cilmigoogii bay ku bareen cilmigii bay kusoo saarayaan deetana laakiinse si ay international standardskii context-ka ula xidhmaan waa in luqada English waa marka saba noqotaa maxaa mid ku jirta meesha iminka China oo kale miisaaniyadda ku bixiyo Englishku waa 50 milyan sanadkii 50 million per year waa English marka qiimaha ardaytiin oo wax baranaysaan ardaynimada lagama weynaado moogta long life learning baa jirta soo marka haddaad rabto inaad cilmiga si fiican u barato the English-kiiba wixii ku xidhan yihiin waa in luqadii cilmiga dana garanaysaa waa inaad taqaano luqadiina taqaano marka China 50 milyan buu ku bixiyaa si ay dadku English-ka u bartaan okay dadka maamulaha daba jaamacadaha caynkaasi they are not the chancellors they are professional managers iyo local experts iyo maxay professional managers okay haddaba waxaan u imanaynaa tan la odhanayo xagga imika loo socdaa jaamacadu waxay u socdaan wax la yidhaahdo 5th generation university ayaa jira this the emerging universities xaggan imika loo tartamaya trendku isbedelaya marka jaamacadahaas maxay kaga duwan yihiin kuwa kale waxay la shaqeeyaan cooperativeska high tech industries la shaqeeyaan waxay la shaqeeyaan maxay cooperativeska high tech industries so for example if you go Silicon Valley markaynu aragno Mareykanka Harvard baa ku taala waxa innovation ka shaqeeya Duisburg iyo maxay wax ku soo qabtay oo si fiican u garanay waxa innovation ka shaqeeya iyo technology whether it is Microsoft whether it is Apple whether it is Samsung the headquarters at Silicon Valley you know what because they are utilizing the knowledge jaamacadda MIT iyo Harvard jaamacadaha knowledge-gooda la isticmaalaya and then maxaa la sameynaya transformation of the knowledge kibaa bedelaya waxa laga dhigay telephone iPhone device dawo ama wax qaaliya oo small laakiin se qaaliya oo dhaqaale badan Mareykanka soo geliyay so this is the innovation okay haddaba sidee isugu xidhan yihiin ayaynu u geli doonaa waxaan ka hadlaynay imiga jaamacadu haddaan idhaahno jaamacadu roolkaasi ku leeyihiin waxbarashada ama knowledge production ka wayna faahno jaamacadaha caynkeeya
iyo marxaladaha soo maray iyo sidii roolka ugu yeelanaya marka marxaladaha la gaaro ee ugu yaraan timaado third generation university ay jaamacadu qaadan karaan roolka ay soo saari karaan aqoon wada third generation marka ku fiirsato wadamadan Afrikaanka underdeveloped countries developing countries inaga hadalkeena bada they are far behind second generation kibir lama soo gaarin maxaa la soo haysaa is this the first generation university marka hore ismaan garanayna aba generation iska jaamacada do we really know about it marka inaga inoo eegto iyada wadamadan inaga hareeraysan waxa laga yaabaa in first generation kii wax ka dhiman ayna de soo gaarin basoma dadana taas waxay ku shaqaynaysaa in jaamacadu research capacity demo laha waarka mise Soomaaliya jaamacada research sameeyo buu qoriyo waxana publication soo bandhigay hadii jiraan aad u yartay ma jiraan way this an indication inay soo socono ama aynu soo gaarin ba first generation marka ay waxa soo dhanba jiray moogta and that's not easy to catch up okay fifth generation university badan ku dhaliyo high tech industries la shaqeeya cooperatives la shaqeeya researchers all these things they are working together waxa la yiraahdaa marka institutional ecosystem researchers scientists corporate business sector and the education system together they collaborate isn't it they collaborate and they have a synergy so collaboration kan maxaa la yiraahdaa marka waxa la yiraahdaa institutional ecosystem sida xayawaanka wadda iyo dhirta iyo xayawaanka iyo kanaacada iyo jinaca waxaan oo dhan marka la isku wada darada ecosystem bay sameeyaan soo ma midba midka kale ku tiirsan yahay soo ma hadda okay institutions can they are like that so the input and I mean the output from a university could be an input of a corporate isn't it waayo cilmiga soo saartay waa output soo maayo dadka soo saartay mun output ahayn wuxuu noqonayaa output ka soo saartay maybe input uu noqonayaa maxay industry ama corporate ama sector kamida dhaqaalihiisa soo and there waxa la yiraahdaa academic freedom ama waxa la yiraahdaa jaamacadda tii moogta waxa dadka ka haysta ma garanaysaa and professional lecturer waxa la yiraahdaa if you are lecturer at this university you are not supposed to go other universities so that's the limitation ecosystem kiba la dagaalamay inaga ma sameeyay moogta arooda jaamacadda tii kitay jaamacadda macaan ka tahay so you see marka marka inaga ma soo dhawey marka inaan fahanaan ka wadaa marka kale inooga baahan yahay maxaa leeyahay dhalinyarta iyo macallimiinta iyo macallimiinta halkan fadhida inay inooga baahan yihiin to think saa in loo fikiro oo la saaga xagga la taagan yahay iyo ma garanaysaa xagga loo socdo taas waa iga okay hanuun maana hadaba knowledge iyo sida loo maamulo iyo sida loo soo saaro markaynu ka hadlayno okay knowledge production ana waxaan isticmaalayaa knowledge discovery waa maxay iska knowledge production laakiin inta la aqoonta la soo saaray discovery ba ka horeeyo soo we need to discover production maxaa ka horeynaya discovery knowledge discovery waa maxay agaabaa jiray aqoonta research baa la sameeyay in ka hadlayna research waxa soo ma scientific research innovation and all these things okay gaabaa jiray marka knowledge discovery oo ku taxaquuqa okay cilmiga waka so particular knowledge domain waxa ka jira gaabti so there is a limitation that research baa la sameeyaa research and development R&D baa la yiraahdaa marka laga shaqeynayo maxay higher education system marka laga shaqeynayo waxa la yiraahdaa R&D dadana gaabka marka la soo saarayo cilmiga aad dhiban ilaahay waxay soo degayaan ma jiro so we need to discover knowledge so knowledge can be discovered waa maxay a new knowledge something that has not been articulated before waxda aan hore looga hadlo ayaa la soo saaraya okay marka la soo saaro maxaa la sameeyaa marka translation of that knowledge waxa laga yaabaa inuu qoraya farjayno moogtay ama symbols yahay calaamado ama all other different language so we need to translate that knowledge lagu turjumo marka luqad marka jaamacada waxay ku turjumayaan researchers luqad la fahmi karo wax la yiraahdo translation of knowledge so when you translate that knowledge waxa sameynaysaa transmission ya ku xigayay in cilmiga la baahiyo ama soo hal galiyo soma ama ma garanaysaa jaamacada laga dhigo ama sida maxaa la yiraahdaa baraarug xagga la soo dhigo so this is the knowledge transmission cilmiga hadaba marka saa loo soo saaro cilmiga waxa lagu sameeyaa marka ka hadlayno utilization kiisa transformation cilmiga la soo saaray we need to transform
ama dawo uu noqonayo soo ya ama nuclear bomb uu noqonayo waqti nuclear bomb uu noqonayo ama waxa noqonaya iPhone something you know very smart isn't it okay marka hadaba aad halka eegto maxay inay knowledge sidaasa ay jaamacadu soo saarayaan knowledge management uguna waa maxay waa knowledge creation in the first place in aqoonti la abuuro knowledge and dissemination and knowledge sharing ya cilmiga in lagu sameeyo maxay transformation hadaba cilmiga guud ahaan laba qaybsanaayo inaga mashaakilna haysta wuxuu qaybsanaa laba nooc waa tacit knowledge iyo maxay explicit knowledge iyagu tacit knowledge waa cilmiga Soomaalida maskaxda ku haysatay la dhintaan moogta iyo waxba qorin moogta ya qofkii waxba qoranaya maxay amada ilaahay ku ilhaamiyada Soomaa aqoon acknowledge and education is different. So education is schooling is confined to academic premises, isn't it? So knowledge without borders. Yeah? Experience is knowledge. Something that you have learned through your experiences is knowledge. So what is knowledge. Knowledge is education. What's my thing? So education is when school or class لكنse knowledge uu ka balaaran yahay experience waxba ku baraya qofka cilmi badan waxba ku baraya nolosha wax ku baraysa so this the knowledge okay marka tacit knowledge waxa la yiraahdaa the knowledge ku jira qofka maskaxdiisa ee ina soo bandhigay waxay waa the knowledge that's residing in individual brain our brain here yaado cilmiga ku jira ee ka hadlayso ana qorin ana documented ka ahayn waxa la yiraahdaa tacit knowledge waa cilmiga maskaxdaada ku jira adana masaajidka aad la soo fadhiisato adiga aan qorin oo si kale u baahin ama aad galaas u dhigayso ama aad khudbada u jeedinayso ama aad garanayso ama aad ku gabayso ama aad ku geeraarayso is a tacit knowledge adoo hadaad dhibatana wada dhimatay sama ya wixii wada dhimatay wada laga marxiyay so marka concept ka knowledge management deetana markaas uu soo baxay oo uu jiri jiray marka laga hadlayo nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu quraanka ku soo tigay ya wala qori soma way hadii la qori lahayn quraanku ma soo gaarin simple so this kind of knowledge marka waxa lagu soo dejinay nabiga alayhi salaatu wasalaam uu isagu garanayo waa tacit knowledge ku noqonay markii la qoro ee kitaab laga dhigay waa maxay waa explicit knowledge management qiimaha uu leeyahay waxa weeye quraanka iyo xadiista iyo islaamnimada waxa lagu soo gaaray through knowledge management mechanisms ya inuu soo gaadhayso Soma waa la qoray okay hadaba explicit knowledge waxa la yiraahdaa knowledge that has been documented buugaas oo kale de qofka iyo maskaxdiisa ka qoray Soma intuu qorin tacit knowledge buu ama potential knowledge ya marka buugaas marka knowledge uu structured yahay ee la sameeyo ee la daabaco ma documentary CD kutub ama soft copy ka whatever you whatever the media is waxa la oranayaa maxay explicit knowledge something tangible yeah buku qoray novel buku qoray video isoo ala duubay Soma waa soft copy whatever it is so that's the explicit knowledge okay marka explicit knowledge ka sorry tacit knowledge ka sidee baa looga dhigaa marka explicit knowledge yeah waa roolka jaamacadu ay leeyihiin waxa la oranayaa qofkii research samee and then they give you a grant so knowledge ku jiray iyo wixii aad baadhay ee maskaxdaada ku jiray maxaad ku qoraysaa you put all this information into a bed in a very structured manner, isn't it? Yeah? The Tanaka you know on explicit knowledge. But I don't work at you. Mahana about one high, what in knowledge is Kafra is Samayan, and begin a Bahina so Sara and look at this. Right knowledge is not a secret. Science is not a secret. Yeah, and Guma has secret notes. Science Guma has secret. But I want to adapt here, while Elm and Berens of Saba access Karenkaro at any cost. jaamacadu waxay leeyihiin R&D Soma oo R&D macna waxa waa research and development funds baa lagu bixiyaa wada lacag baa loo allocate gareeyaa budget baa loo allocate gareeyaa dadana markaas grant la siiyaa dadka capacity gaale oo inta badan PhD holders then they do that research kaas muxuu noqonayaa marka waa cilmi cusub oo soo kordhiyo Soma waa novel something that has not been articulated buu soo bandhigaya ya marka ay ku leeyihiin jaamacaduhu maxayna aqoonta ama knowledge production ka is very important una isbedel okay markaynu ka hadalno maxay hadalnay wadamada iyo sidoo kale badan yihiin
wadamada iyo sidoo kale badeeyeen oo imika Mareykanka ugu badan ya R&D investment marka jaamacada lagu sameeyo maxaa ugu badan jaamacadiisuna adduunka ay ugu horeeyaan ya wax kale kuma iibso ma wax laga eegaya marka jaamacada lagama qiyaaso weyn tahay hargeysa leegtaa waxay soo saartaa loo dhadhiyo marka maalin xasuustaa gabadh macallin noo ahayd markaan Malaysia masterska dhiganay it was very strange for me like I recognize that it is true no Malaysia jaamacada la isku daro department computer science oo ku taala maxaa Harvard ama MIT ka badan waqti agada Malaysia oo jaamacada la ay waaweyn very big universities uguma qiimeeyay ranking ya uguma qiimeeyay jaamacad weyn tahay qurux badan tahay waqti okay waxa loo qiimeeyaa what does the university contribute to a particular knowledge domain marka jaamacada Malaysia isku wada dar ya across all levels department of computer science oo ku taala MIT ama Manchester University ayaa iyo dhan marka la soo wadageeyay ka badatay 5 jeer meena wax la yaabaa ya marka jaamacada halkan lagu qiimeeyo isna maxay inta soo building bay leedahay inta soo maxay leedahay ya that's why waxa kale ma aha waxa weeyaan maxay nahay budget baa lagu bixinayaa dadana return on investment baa lacagtan la geliyay marka knowledge production la soo saaray aqoonta inta laga faa'iideyso ayaa la iibgeeyay deesoma ama waa loo doontaa oo qofka doonaya inuu Harvard dhigto waxa laga yaabaa dad business doonaysa inuu dhigato in $500 laga qaado ama $100 ama $200 so then you see the trend of knowledge based economy yeah okay marka imika jaamacadaha they are shifting again okay knowledge based economy is so gaari noqdo oo jaamacadaha Malaysia kuwi Japan ku yaalay publications waxa ku dhacay waxa la yiraahdo publication syndrome noqdo inta publication ku waa shan noqdo publication wala dhaafo publication ka weyn innovation ka la noqdo hadii kale wax la iska akhristo iyo wax soo kordhinay marka hadana shifting meel kale loo guuriyo noqdo ya yatana trendka horumarka iyo trendka waxbarashadu wada socda ya bari dawid waxaan ka hadlaynay laga hadlayay macnaha knowledge based economy oo wala wada kun iyo ilaa waqti okay jaamacadii baa dadaalaya waxbarashada iyo cilmiga iyo aqoontiga la kobcinaya Soomaa laakiin sida shift imiga waa maxay innovation based economy okay marka jaamacaduhu meel ma taagna roolka ay aqoonta ku leeyihiin meel ma taagna talabaadna waxa jira wax la yiraahdo intellectual property right iniga keen sax ma jiraan oo qof intuu wax iska soo koobiyay iska soo bandhigaya okay laakiin se wala ilaaliyo wax la yiraahdo intellectual maxay IP Soomaa intellectual property rights baa jira marka waa tan ka hadlayna lahaa first generation university waxa ku diraashay intellectual property rights waxa weeye 1900 ya ayaa la yiri okay cilmiga dhabta ah waa in la ilaaliyo is to be protected the truth ya marka waxa laga yaabaa maxay markan inagu isbarbar dhigno okay markan inagu isbarbar dhigno halka laga yimid iyo qaabka loo socdo soo gaab in baa jira Soomaa gaab ka weyn waxa laga baxaya marka la yimaado competitiveness marka la yimaado ya iyo ma garanaysa in la fahmo cilmiga adduunyada iyo jaamacadaha adduunyada soo shaqeeyeen ya laakiin sidee wad arkaysaa guriyaha inta lagu yaa la keenay jaamacada lagu garay gaasal la dhigaya inta wiilkii baa loo galay marka knowledge production waxa ka imaanaya marka jaamacadaha waaweyn marka la tago macallinkan marka soo baxo baska soo raacaya magaaliga soo kaxaysanaya maaha wuxuu leeyahay workstation grant baa la siiyay maxaa waxa lagu yiri cilmi iyo aqoon cusub soo saar dadana cilmigan iyo aqoonta cusub ma dayacmaysa dhaqaale jaamacada soo gelinaysa okay marka waxaan xasuustaa aan waqtigan Malaysia tagay jaamacadan dhiganay UTM baa la yiraahdaa biggest universities maxaa Malaysia ku yaalo weey marka aan tagay waxay university baa hibot waxa soo socotay first generation bay ku jirtay marka semester dhigto ayaa la siiyay certification kii la yiraahdo research university markaas ay board waaweyn meesha lagu qoray okay research university maanta maxay isbedelay moqto jaamacadii baa yaa noqotay certified marka iskama qaadanayso moqto khubara imanaysa wala qiimeynaya tan waxa la eegay knowledge production kii
imise PhD baa jiray, imise professor baad haysataan, imise lab baad haysataan, imise publication baad soo saarteen, imise grant baad bixiseen, imise book bay professorada qoreen. deetana macnaha qaarkood waxaad arkaysaa kooraskii la dhigi aan dhiganayo macallinkii qoray baa xagga joogaa, macallinkii qoray yaa kuu dhigay buuggiisii marka. deetana markaasaa la siinayaa jaamacaddii research university. imiga intaan imiga aan PhD ka dhiganayay trendka jaamacaddu isbedelayo, aan waxaan ka tegay markaa for example entrepreneurial university, in jaamacaddu noqoto entrepreneurial oo imiga cooperatives bay la shaqeeyaan. waxay imanaysaa jaamacaddii maxay HP ama Samsung whatever it is, marka cilmigii iyo dadkii professionals bay soo saareen, iyo dadkii baa la kala guranaya, la kala boobaya. marka sema CV meel la taagay moogta, marka CV bilsana dhanka kala la akhriyo, ma it's not like that, it's all about competitive advantage. CV inaga marka laga qaado caadi loo akhriyo, marka dadka halkan la akhriyo moogta. laakiin jaamacaddu waxay soo bandhigaysaa marka capacity ardaydii waxay sameeyeen ku robot sameeya, ku sameeya maxay kamarad, ku sameeya maxay haweynay machine kale, ku sameeya drones, waxa soo dhamaan soo bandhigay. waxay imanayaan bulshadii drones sameeyeen, kuwii robotics ka imanaya, kuwii multimedia imanaya, they selected the best. taas oo kale is one of the indications of fifth generation industry in maxay cooperatives ka iyo ma garanaysaa jaamacaduhu wada shaqeeyaan. okay, marka roolka ay ku leeyihiin maxay jaamacaduhu knowledge production ka uu badan yahay, oo de ma garanaysaa beebaro badan baa laga qoray, buug baa laga qoray. xagga haddaan caawa dhan ka hadalno soo koobi karno, laakiin muhiimaddu waa maxay? jaamacadda marka ugu horeysa la aasaasiyo waxbarasho loo aasaasay in the first place, laakiinse baahidii dadka iyo adduunka iyo sidoo u socdo ayaa waxay ku leedahay saameyn in jaamacaduhu shiftin sameeyaan ay dadka ka jawaabaan baahidooda. imiga jaamacaduhu they are also again shifting. waxaa jira concepts kan imika la yiraahdo walaanu dabcan wax ka bartay oo ku saabsan higher education-ka iyo sidee baa la isku waafajiyay wax la yiraahdo sustainable development. amana waad arkaysaa in jaamacadaha islaamkooga transforming university for sustainability ama higher education for sustainable development. marka waa level kale oo jaamacaduhu qaadanayaan. marka waxaana wuxuu ku saabsan yahay aqoontii iyo maganaha jaamacaddu siday capacity u leedahay. dhanka kale markaad eegto magaalooyinka baan isbedelaya moogta, oo waxaad maqlaysaa smart city. Guangzhou oo kale China ku taala is one of the smartest city on earth. waxaa ku nool 24 dhalinyaro ah. waxa magaalada adduunka ugu dhalinyarta badan. maxay ugu dhalinyar barteen? sababta dhalinyartu they are waxay wax ku soo dhasheen the technology ka soma, deetana innovation iyo waxaan oo dhan bay la socdaan. deetana they live smart, they are thinking smart, and then they are working smart. magaaladooda bay qurxisteen moogta, ay ka dhigeen very smart. marka trendkuna uu isbedelaya. waxa magaalooyinka waxay noqonayaan smart because of the knowledge production of higher universities, and work stations waxay noqonayaan smart sababtoo ah the knowledge production of the universities. and sidii loo fikirayay smart bay noqonaysaa. waxaan isbarbar dhigaa smart thinking iyo productivity moogta, ama waxa la yiraahdo labor iyo productivity. afrikaanka oo dhan la isku geeyay kuwa aad u shaqeeyay aad u shaqeeyeen, haddana productivity is negligible. marka laga hadlayo laakiin technology iyo innovation, okay, less labor, dadkii shaqo aad ma qabanayaan moogta, laakiin maxay gaarayaan high achievement. wax weyn bay sameeyeen, dhaqaale weyn bay haddana abuureen, iyagoo ma garanaysaa wax badan ba ishawlinayaan dhidid moogta. inagu ma jira fadad qaadanaysa waddiisa xoolihii baa la raacaya, and then again it's not significant. okay, marka inaga xirnay all our efforts waxba ma soo saaraya haddii aan garanaysa inay jirin intellectual capacity, hadduuna wada ku lahayn, ayna jaamacado lahayn, oo dadka wax barayaan inay noqdaan professionals oo wax soo saaro, dadka wax contribute garay. inagana level kala taagan yahay. so when you see output ka soo baxa jaamacada, waa qof shaqo tagi kari laba tahay soo ma? is that true? qofan shaqo tagi karin ba, laakiin marka waxa loo fikiraya waxay yiraahdaan jaamacaduhu okay, dawladii bay culays ka qaadeen, waxay yiraahdaan dadkan soo saarayna waa inay noqdaan job creators rather than job seekers moogta. oo qof kasta oo maanta innovation sameeya jaamacad buu dhigan yahay soo ma? haddaad Microsoft soo qaadato, Bill Gates haddaad soo qaadato, Steve Jobs haddaad soo qaadato, okay, jaamacaday dhiganayeen ama ha dhamaystaan ama ayna dhamaysanin soo ma? okay, dadka kale innovationkii waxaan dhan soo saaray jaamacaday ka yimaadeen. marka they are the job creators, not the job seekers. marka roolkii bay isbedelayeen jaamacadaha. inagana waxa la soo saaraya
kuwa aan aad loo shaqo tagay soo ma oo macna skillkii profession-kii baa inaga dhigan marka first generation university baa inagu main soo gelin main soo gaarin uma soo dhawin not only Somali countries but also the other countries if you go and other universities nearby waxay wax arkaysaa inay level ka soo socdaan ama ay qaarkood soo gaarin soo marka trend-ka inoo dhaxeeya inaga soo gaarin first generation universities iyo dee garanaysaa fifth generation universities this huge gap so ma ya jirtay okay marka waxbarashada sare waxay soo saartaa professional skills scientists kuna soo saara marka research oo aqoon abuura oo wax cilmi soo bandhiga oo buugtan qoran waxa oo qoran dad jaamacad ka soo baxay oo dhigtay ya qoray so ma why our universities are not that productive so there are some limitations maybe taas waxay ka iman doontaa su'aalaha magaranaysa isweydaarsanno aniga ay ka jawaabaan dad kale oo aniga magaranaysa iga aqoon badan maxaa oo iga siinaysan Dr. Idris oo kala xaqan fadhiyo iskaabinaya Musa oo isaguna aad waxbarashada ugu soo jiray I think intaasaan baan ku soo gabagabaynayaa waqtiga ay nagu kooban marka waxaan uga bixin Cabdillah هذه أهم مسائل